kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta inagu xiran meel kastoo joogtaan oo naga daalacanaysaan waa aniga iyo Sahra Diiriyo oo idin leh kulanti wanaagsan galab wanaagsan meel kastoo joogtaan oo muuqaaladeena idinka soo gaarayo waa janaalka aanu mataanahanahay ee Maskax Kobcis iyo Shukri Sharaf Official Channel anigoo Shukri Xasan iyo Sahra Diiriyo barnaamij qurux badan oo xiiso ayaan idin wadnaa dabcan waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan balse intaan u gudbin janaalka bal socodsiya asxaabta la wadaaga subscribe comment and share waxageena Sahra haye soo dhawow. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكر شرف أرجاجو وأي فرحد أصحابتنا وأي فرحد إن نس أرجنو كل يوم أنا أركي أنا كنت بدل ما أرجني مركا وسلاميه وأنا تعال هاي مركا يا سلو واتهاي runtii waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxa xalayto ugu dambeysay 14 Oktoobar ay ku beegnayd 14 guuradii loogu dabaaldegay meelo kamid ah Soomaalidu degto meelo Soomaalidu degto 14 guuradii Galmudug State walaalo Soomaaliyeed baa xaflad halka ku dhigtay bishan horaanteedii Agost 2deedii iyadan waxa Puntland Garowe ka dhacday xaflad kale iyadan aad u qurux badan oo lagu weyneenay jiritaanka 23 guuradii ee Puntland waxa ka horeysay iyaduna hadii aan si daba dhigo bishii July 1geedii ama 1 Luulyo sidaan u naqaan badankeen iyo 26kii June maalmihii xorriyadeena Soomaaliya wadankii oo dhan ummadii Soomaaliyeed oo dhan uu ahaa udub dhaxaadkii waxa ka sii horeysay June walaalaha Djibouti 27kii June ay macnaha maalin ka soo horeysay كرجو هذا نصار ولا لها إيجان سومالان أيا إيجونا سومالي قلبيد أيا إيجونا وحيود بالدقين مالين تحرية حرية دولة والوقت سهر بالمحاكة عن صباحي مالمها قرط بدني ولا لها سومالي إنك استوقرني مدي إيو صدق سنة كدي أمدي سومالي سنجيجا وداقنيو سرتنا قاعد حيا سنجيجا وداقنيو سرتنا قاعد حيا قال سرمي مايو قال نسوني ماي سكيو ولا لو سكيو ولا لو صومالي مدري ولي وسيدي صومالي مدري ولي وسيدي عليد قاركين aan jeclaysanay inaan gobollo iyo maamul goboleedyo la sameeyo wada shaqeyn ay jirto wada noolaansho ay jirto dadkuna ay walaalo wada yihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay Shukri horta in dadku de farxaan oo maaragtay nabadgeliyada iyo khayrka Ilaahay siiyay ku farxaan waa wax fiican يعني ده لبنا وكلا سارينا بدو هرتا waxa waaye xorriyada dadka markay la helay xorriyada la qaatay taas u tirsi kuma jirto qofka wuxuu ku farxaya ama wadanku ku farxaya waa maxaan ku dhahaa qarannimada maaragtay iyo xornimada maaragtay wadanku helay iyo dadku heleen oo gumeystihii maaragtay kala duwanaa aan ka helay taas waa maaragtay وودنك وواحد لف دبرك وحوي قف كستو بني آدم وحق لي هاي معرفة إنه حر نقده الحرية ده من وحواية مد دولة قبلية ده أما معمول قبلية ده اسمه السنة يعني مركا وحنو كلا سارينا دي لبا وكلا سارينا تنحرية ده أيضا الله دبالدقية ويكدو وانتهي وتاسو أرنتاسو وحواية ومضحي arrin wax qabad ma aha laakiin waa arrin waxa waa ummadeed waa masiir ummadeed si fiican iyo xornimo ummadeed iyo xornimo wadan iyo dad iyo diin iyo dal taas waa taa midna de waa midaan dawladda goboleedyadu ay u dabaaldegeen taas waxaan ku fiirinaynaa horumarka iyo maxay gaareen dawladda goboleedyadu arrintaa weeye arrinta aynaka aan uga jeednaa si fiican waatahay waxaan filayaa inuu maqalka ku soo gaaray codka dananaya waa Xasan Aadan Samatar oo wuxuu leeyahay Soomaalinimadii wali waa sideedii waatahay codka halaasiga inuu halkaas ku dhaafno Soomaalinimadii wali waa sideedii waxaan inoogu xijinayaa waxaan rabaa heesaha gobolada inaan hal iyo laba ka qaadano oo loo sameeyay
fanka ee qayb weyn ayuu maadaama uu ku yahay Somaliland waa tahay waatan Maryam Mursal waxay leedahay oga korqa okay gadaala noogu diri doonaa ما لله واتهي ku dheeraan mayno karagoo hadana saarayso la dhihi jir waagii waatahay labadii saddexdii bishii July garow waxa ka dhacday heesta aniga qudheedu waa ka helay heestii qaadayeen waadani hees waadani la yiraahdaa timid waadani مصلح مدايا إيو واتهي دانينا هالكاسو أنا ويرها كيو إن يرو حنك قادنين هردعة إن حالته بلسة إن تامد كدوم بالسودان خرطوم كدعدي فنانا دانا القلق يا لو سو عسومة رئيس السودان إن أرداد السودان ولا علىها قبل فرين آد وفي عم بيصدرتي أنت سيانكوها كرينا إن وحنوك قادرين إن واحد جرى معمول فربضن كسمايو هيرشابيل لما أنت ولا علىها سوماليا أنت دبل دكتي أنت كلو حنو لنا همبليو nabadgelyada iyo wada noolaanshaha iyo walaalnimada in laga shaqeeyo ayaan faraynaa micnaheedu ma aha inaan anagu dhiirigelinayno amaba aan waxyaabo kala sameynayno sahrahay waa u hambalyeynayna kulli ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba ma aragtay waa ka dhalanay waa dhiigeeni waa dhacanka dhulkuna waa dhulkeeni meel kasta oo Soomaali degtaba dhulkana anaka iskale awooyaashay Ilaahay baan ugu abuuray cid meel kale ma jirto maaragta waa soo dhaweynayna waana isu hambalyeynayna uma hambalyeynayna annaka isu hambalyeynayna laakiin hambalyada marka laga soo tago hambalyada iyo maaragtay in dadku de farxaan laakiin wax waaye in la hambalyeeyaa ma xuma laakiin maxaa sanad guuro kasta maxaa maheesaa lagu hambalyeeyaa mise wax kala jira شكرا يا هذا وركو كوسو عليي واته waa su'aal muhiim ah meesha taalo horta xalayto markaan arkay muuqaalkan quruxda badan ee fanaanadan laga daba dhacay nada alqala waxay xalayto marbay ka hadashay waxay tiri anagu maadaama qurbo joogno oo wadankeeni wadanaan ahayn oo qof waliba uu yeesho wadan labaad ani waxaan qiyaasaa sahra wadanka UK ee Britain inuu ku yahay wadankaagii labaad dhalintii casuuntay ardayda ahayd waxay ku dhiirigelisay inay dareemaan wadankoodii oo kale inuu yahay inaan wadaagno diirka Afrika ay ka wadaa inaan wadaagno diinta kelmadii xalay ka tiri maray ka hadashay wayna hambalyeysay si walaalaha Soomaaliyeed waana jecelahay tiri Muqdisho inaan tago ku riyoonaya marka maxaa kaaga soo baxay bal su'aashaad inta kaaga jawaabay nada alqala dhalintu marka nada alqala waxay ku casumeen Soomaha Suudaan Khartoum qartun bay ku casumeen waa wax fiican runtii dhalinyaradu maadaama meesha wax ka barato joogto oo ay ku dhaqan tahay gabadhaasna ay maaragtay u arkaan inay faankeeda tahay oo ay faankeeda ay yihiin yani inay iyada taageersan yihiin ama ay raacsan yihiin hadday xafladda iyo farxadda la qaadato wax xun maaha waa wax fiican inay la qaadato la qaybsato farxadda taas waa soo dhaweynaya maaragtay wax xun maaha laakiin midda aan rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan in la farxaa ma xuma laakiin maxaan ku farxnaa waay sheekada in la farxaa ma xuma su'aashaadii haddaan ka jawaabo su'aal baad i weydiisay nada qalaan jeclaystay inaan istaba dhigo oo heesihii laga sameeyey inaan isu xujiyo inkastoo heestani ay markay leedahay Suudaan markay tiri ay qofeejkii kale Suudaan oran lahayd bay wuxuu ku bedeshay Soomaali nacamtu waxay u bedeshay inay ummadii islaamka ah ee waliba Afrikaanka aan meel la kala jirin
markii ummadii Soomaaliyeed oo is wada dhashay raas caseer iyo raas kambooni Soomaalidu ay wada degto maxay kula tahay in fiicnaa lahayd in ummadii walaalnimadoodii iyo wada jirkoodii iyo wada nabad ku wada noolaashay maxaa wiiqay maxaa diidaya nabad ku wada noolaashay hadda arinta wax iga weydiisay waxa weeyaan waxa diidaya shacab ma diidayo waxa diidaya dad maaragtay dana gaar leh oo mataqaanaa runtii sideedaba wadankan aan deganahay Soomaaliya la dhaho dhulka Soomaalidu degto waxa daafici jiray odayaal baa daafici jiray ama rag baa daafici jiray markaan taariikhiyanka aniga dadka waxaan aad historiga ama taariikhda Soomaalida u akhriya ulana socda aadna ugu xiran baan ahay wadankan markaad aragtid noloshiisa horta wuxuu ahaa meel dagaalada lagu soo qaado dagaal u taagan boqortooyooyinkii jiri jiray islaamka ka hor iyo ka bacdi kulli waxa way maaragtay waxa baabi'in jiray dad kale oo dibadaha nooga yimid maadaama marka Soomaalidu ay markasta oo la baabi'iyo inta is aruursato dib isu xoreyn jireen badda aragto inta dheer leegna ay ka fiijiyeen inaan nin kale cag soo saarinin oo aad aragto loo wada micyeelisanaya hadda yacni waxa waaye waagaas waxa waaye dadka odayaasha dad qable oo isku xiran oo xoolo haysto oo xoolahooda iyo noloshooda iyo qabkooda iyo dhulkooda ku xiran bay marka yacni dad la loodin karo ama shilin la siinsan kara ma ahayn hadda Soomaalidu waxa waa qabkii ay lahayd maadaama uu baaba'ay sharaftii ay lahayd baaba'day waxa waaye even dhaqaalihii wax way yacni waxaan ka wadaa odayaashiiba hadda xataa waxay galeen in la dhaqaalo la siisto la gato anu meelo badan oo gaala kaga doodaysaan arko odayaasha Soomaalida ay leedahay mataqaanaa markii hore laakiin waxa waaye inaan kala go'go'no waa arrin shakhsiyaad ay rabaan waa arrin shakhsiyaad iyo ajnabi wadato oo ay rabaan dhaqayraadka in lagu daldasho maalinaweed waxaan arkayay nin baa wuxuu soo qoray professor wuxuu soo qoray wuxuu yiri buuraha Golos la yiraahdo Golos buuraha Golos ma waxa xukuma buu yiri Muuse Bixi mise waxa xukuma Siciid Deni marka waxa weeyaan buurahaas dadkii qoraalkii dadkii comment qoraayay baa waxay soo qoreen buurahaas waxa xukuma Sansaris miya ma ogi shirkad la dhahay waxa laga leeyahay South Africa Imaaraadka iyo BS kuwa la dhahayo Mareykanka ayagana keensaday meesha saddexda qolo marka maxay sameeyaan waxay sameeyaan dahabka iyo dhulka bay gurtaan markay gurtaan waxa waaye sun bay ku daadiyaan meesha yaa marka saddexda qolo oo meesha ku haayo waxa waaye Somaliland ma tagi karto Puntland ma tagi karto odayaal iyo horgalayaal ya shilima qaata ba waxaas ka mas'uul ah marka awood uma laha inay Somaliland timaado Puntland awood uma laha inay timaado odayaal odayaal beeleedkii oo horgalayaal beeleed horgoodayaan duqeyd dhaqameedkii odayaal beeleed wax odayaashaas waxay barteen odayaashii wax daafici jiray ma ay daba gelin aabayaashoodii awoowiyaashood raadkoodii waxay barteen shilinkii ayaga calaqyadaas loo tuurayaa environmentii baayadii ay ku noolaayeen xoolahooda iyo waxoodii iyo dadkoodii ku noolayeen waa la sumaynayaa lacagtii iyo wixii xoolihii ka soo baxay shisheeya qaadanayo Imaaraad iyo South Africa iyo Mareykan baa kala guranaya ayagiina horgalaha xoogaa yar u tuuraaya marka waxa aad iyo aad niyad xumad iyo saad uga Soomaalida waxa waa in dhulkaagii aad ka tahay adigu faqri qaxooti aad ka tahay maxaan ku dhahaa maskiin horta adoo soo taagana inta horgalayaashaas la iska qaban waaye meel kasta jooga ama taqaanaa dhulkaaga saas loo kala gogoosanayo waxa lagu kala gogoynayo dawlad goboleedyada loo sameeyay wax kala maaha waxa weeyaan adigi baa la isku kaadiray dabadeedna waxa la isma aamini kartaan waa in la idin kala jarjaraa يعني بوليسي أما سياسات وقت دير لو دقي وا oo loogu talagalay wadankan in laga qaato khayraadka wax kastaba waa gartay fanaaniinta tusaale ahaan laga keenay dalka dibadiisa way badan yihiin ma rabno inaan carab dhawno lacagta inta la eegay xafladaha lagu dhigayo maamulada lagu amaanayo ama madaxda inkastay mudan yihiin inta in ka badan
maxay kula tahay lacagtaas waxay ku fiicneed in goobo caafimaad isbitaallo lagu furo iskuulo lagu dhiso in hooyo Soomaaliyeed dariiq ku dhalaysa gargaar caafimaad ay ku hesho sahar bal ka war aragtida anigu waxaan ku bilaabay bulshadu inay faraxdo way fiican tahay laakiin markaad farxaysid dawlad goboleedyadan maxay horta maxay sanad guura kasta maxay sanad guura kala soo bandhigeen ma waxay soo bandhigeen lacag ay intay fanaan ugu yeertaan oo xagga ugu yeertaan aniga shakhsiyan ifaani ah aniga nin la faaniyo horta waa ka soo horjeedaa totally waa ka soo horjeedaa nimanka la faaninayana wax lagu faaniyo diiniyana ma fiicna maxaan ku dhahay qofka bini aadanka la faaniyana qof jiraba ma ah waa qaymo madihid qaymo waxaad ku leedahay iban haddaad wax tartido bulshada wax u tagtid in lagu faaniyo waaba foolxum iyo ceeb ma ogtahay وصار أركو waxaa la rabay dadkan waxaa la rabay inay soo bandhigaan horumarka ay gaareen sanad baa okay sanadkan sanad guuradii maxaan soo bandhigay waxaan dhisnay maxaan ku dhahaa ceelal baa intaas oo ceel baan qodnay waxaan dhisnay dekad baan dhisnay waxaan dhisnay iskuul heer baan dhisnay ayaga tabartooda wax kastaba ha aatay inta inay soo bandhigaan amnigii waxbaan ka bedelnay dariiqada taswiirka nabadgelyada amnigii waxbaan ka bedelay iskuulaad baan dhisnay hooyooyin intaasaan shaqo u abuurnay intaasoo wiil baan shaqo u abuurnay aabyaal baa shaqooyin loo abuuri karaa dhaftirkooda yes beerihii baa mataqaanaa intaasoo hektar baanu ka qaadnay inay wax dadka wax u taray oo dadkii u arkaan inay wax loo qabanayo oo noloshii dadka isbedel ku dhacayo inay waxay ahayd inay sanad guurada ku soo xafladeeyaan لكن هبل وقوتها هبل ما صعنيس وقوتها هبل موقتها iyo magaciisi iyo gabar loo yeertaa xataa iyo aniga waxaas ma soconayso wax qabad baa la rabaa wax tar baa la rabaa nolosha dadka isbedel loo sameeyaa la rabaa waxa la rabaa in wax soo saar baa la rabaa marka aniga waxaan dhihi lahaa dawlad goboleedyada inay competition fun inay isbarbar dhigaan bay hadda waxaana soo bardhigin oo intaasoo hektar baan soo saarnay intaasoo beerood baan soo saarnay intaasoo disba waxa inay la soo shirtagaan bay ahayd in dirgax iyo hirgax loola shiriimaado maxay ii taraysaa ma hooyada gaajaysan oo beerka dhulka u taallaa hees wax u taraysaa ma aabbaha dhimanayaba maxaan ku dhahaa hees wax u taraysaa ma fanaan laga keenay ingiriis baa mataqaanaa biilaya mataqaanaa hooyada baahida meesha ugu dhimanaysa may مسؤولية ولا سويدينيا آخر مسؤولية ولا سويدينيا سهرة waxaa jirtay baraha bulshada ma aqaan inaad ku aragtay dabcan hooyo Soomaaliyeed oo ilmo xambaarsan ba askarigii saygeeda ahaa bay mushaar ma aragtay ka weysay marka bay halka waxay beegsatay xaruntii saldhigiisa ahayd sawirka ma aragtay baraha bulshada bil inay ka soo wareegtaan sawirka ma aragtay sawirka ma aragtay waan arkay sawirka gabadha hooyada ilmeedii gaajisnaayeen laakiin maskiinka askarigu waxba ma haysto asaga laftirkiisu wuxuu haysta male hooyadu laftirkeeda ilmihii ka ogow kama yeelayaan waxba ma haysto waa jirkaaga dad u kariso carruurtii way cunayaan ilmihii wax kama yeelayaan wax ma haysto laakiin askarigaasu xaq wuxuu u lahaa inta maxaan ku dhahaa askarigaasoo kale waxa loo qabtay bay ahayd in lasoo bandhigo la dhahaa askarta xataa difaaca noogu jirta waxaanan u qabanay askarigaasoo kale iyo hooyadaasoo kale dibudejintii lagu sameeyo guri la siiyo noloshoodii hooyadaasi laga kafaalo qaado nimanka daafaca ku jiro intaasayto maxaan ku dhahaa burcadiimeedda la diriraayo iyo argagixisa diimeedka waxay ahayd in iyaga maxaan ku dhahaa wax kasta laga hormariyo oo la dhoo guryaha loo dhiso oo noloshoodaba la kafaalo qaado la dhoo okay guryo iyo meel ay xaasaskooda ku nool ma ahayn inay isaga xaaskiisii oo intaasoo carruura leh ay dariiqa ku qaqabsato isagoo laftirkiisa sida fartaa sacaatada iyo rafaadka ka muuqda arkaysa marka sidoo kale waxaan arkay iyadana askari roob ku da'aya oo roob taagan marka dawlad baa xukuumadahan Soomaalida ismaamulada ayaa mid kamid waxaa laga hadlayay in salaadii iyo nin mas'uul ayaa hadlayay wuxuu la dardaarmayay hogaankii ciidamada markuu la dardaarmayay marka wuxuu yiri alla ka cabsiga taqwada hala badiyo markuu sidaa yiri baa qof kamid dadka commentiga waa dad cajiib moogtahay marka abuu wuxuu soo qaaday askari roob ku da'ayo dhiiqa dhex taagan marka abuu wuxuu yiri bal askarigan maskiinka ah dariiqa taagan ee umada u adeegay bal roobka baca iyo gabaad iyo wuxuu ka gala bal siiya kanaha ilaawinuu yiri commentiga wuu ku soo diray
ها askarta waad aragtay waxay qabaan oo roobka bahalha loogu talagalay qabaan oo waterproof ma haysta waterproof ها waterproof jaakadahaas ay qabaan jaakadahaas ama taqaana askartu xirataa blood bay qabaan waxaan ku dhahaa oo rubber ah oo dhiiqada ma taqaana ay maaragtay u gelinin laakiin muhiimadoo dhan waxa waaye muhiimad waxa waaye dawlad goboleedyada hadda baaldegaan ma xuma laakiin waa inay ku dabaaldegaan wax ay dadkooda iyo dalkooda u qabteen ma aha in hees iyo nin la faaniyo ujeedadeen waa taas ujeedadeen waxa waaye sanadaha dambe oo soo socda intaad waxa la leeyahay wax ka aragtaan bedela dhaqankiina ah inaad dirgax iyo hirgax aad ka meesha nala soo istaagtaan wax qabad aad keentaan iyo waxa nolosha dadka iyo shacabka aad ka bedesheen anaga hirig iyo hees uma baahanin waxaan u baahanahay maxaan ku dhahaa dadkanu inay noolaadaan waxaan u baahanahay in hooyooyinku shaqo helaan waxaan u baahanahay carruurtu inay iskuul hesho waxaan u baahanahay in isbitaallo la dhiso gabdhaha isku go'aya inay meelo helaan dhakhtar oo la geeyo waxaan u baahanahay askariga roobka taagan in roobka laga siiyo waterproof oo maxaan ku dhahaa u xirto waxaan u baahanahay guryo ay galaan in loo sameeyo waxaan u baahanahay hooyooyinkooda iyo naagahooda in laga noqdo mas'uul oo cunto iyo nolol ina ma aha xataa ma waxa loo waayo hooyada ninkeedii ku dhageyso maskiin in xataa wax kale iska daaya raashin loo geeyo bal iska dhaaf maaragtay wax kale raashin guriga in loo dhigo lacag bayaan la siinin raashinkaasay karsan lahaayeen hooyada odayga jiska kula dhigayso dhagaxaynayso oo biilka isiib ma yaa ayadu waaba taas waaba soo indha adeegtay ka imagine inta boqolaalka kale oo meel kasta joogaan indha adeegaynin gaajada xishoonaysa oo afka aan ka hadli karinin ka war iyadu waaba dadka dad isku mid baa qof baa iskasto qof baa waxaa jira qof markii waxa qaadi waayo ma fahantay dhahaya see ku noolaataa see ilmahaagu weliba markaad ilma haysatidna waa ka daran tahay waa kontroolkaa kaa dhumaya markaa si fiican wallaahi waa wax cajiib ah xusaska horta waa hambalyeynayna waa sidai sahre sheegtay anigaba marka waxaan leenahay xusasku ha socdaano balse wax qabadku ha hareer socdo ugu yaraan ha barbar socdo markii xuskii hees amaana noola daaro ama dadkii noo daaro anagu waa dhegeysanaynaa oo waxaan isleenahay bal maxaa xigi doona heesta maxaa ka dambeeya wax qabad baa lasoo wadaa sheekaa ka dambaysa balse sheekadii lagu kala teg hadday noqoto waa dhibkeeda leedahay wallaahi waxaad saad heesahaas maxaa la dhex gelin doonaa baad isleedahay anuu maba fiirsado to be honest wallaahi aniga waan daawaday habeen halkaan iska fadhiyo fursad yar baan haystay marka hadda heestii aad bay u fiicneed waa dani waan fiirsaday balse runtii inkastoon wada daawan muuqaal wax qabadkan hadda gadaal baan ka sugaynaa inkastoo wax qabad muuqda aanan arag anigu heesahana ma daawado mana daawanin laakiin yacni waa dani heeskiisa oo la ii soo tuuray waa fiirsaday heesaha kaloo faananka ah oo kaloo dowlad goboleedyadoo dhan waa la ii soo tuuray sideedana waa taan ku bilaabo waxa waaye shakhsiyaad in la faaniyo waa kasoo horjeedaa dadku waxay ku faani karaan wax soo saar adduunku wuxuu ku faanaa wax soo saar adduunku wuxuu ku faanaa tacliin adduunku wuxuu ku faanaa maxaan ku dhaha horumar adduunku higsi buu ku faanaa fishin buu ku faanaa aniga waxaan dhihi lahaa dowlad goboleedyadanu waa inay soo bandhigaan waxa ay sanadkan qabteen sanadka ku xiga maxaa u qorshaysan kan kaloo kale maxaa ku qorshaysan maxay gaareen horumar maxay dadka u ballan qaadayaan yacnihii dadku waa inay mataqaanaa nimanka madaxda waa inay bulshada iska gadaan laakiin anaga dhibaatadan haysata waxa waa dhibaatada Soomaali haysata waxa waa xor waxaadan u ahayn qof aad soo dooratid markii 4.5 lagu sameeyo calool weyna uu soo samaystay oo jeebka gashanaya inkaar baan kuwaas ilaahay ha kurido kuwa horta keenay 4.5 kuligoodna meel alle ma gaarsiiyo subhanahu wa ta'ala may habaarka naga joogto may waa habaaraysaa waxaad ku habaaraysaa cadaalad darrada ku habaaraysaa hanuun haday leeyihiin mar hore soo hanuun sami lahaayeen meeqa xaaraan cunto ka dambeysay oo dhimatay ma magtahay laakiin waxaan kuu sheegayaa waxa waaye yacnihii qofku markuu doorto qofka uu matala wuxuu kula xisaabtamayaa marka dambe uu soo baxo maxaa xaq u leh maxaad suubis markii lagu soo nin baan weydiiyey waxbaan kuu sheegayaa nin baan weydiiyey su'aal waxaan ku iri xildhibaanadan iyo waxaan inaan markii la ka sameynaa rabe program laakiin intaas kaliya ka shameyn xildhibaanadan iyo dadkan baan ku iri la soo dooranayo ma laga waayo qof kaliya oo muwaadin ah oo ku jirto dhiig Soomaaliyeed muwaadinimo oo dadka wax u qabta
wuxuu igu yiri ninkaas si cadaalad u ila hadlo nin dhalinyaro ah wuxuu yiri marka intaan wax la soo dooran qabiilada isu taga qabiiladii markay isu yimaadaan waxay leeyihiin warhaade yaan dooranaa hebel waa nin islaam oo afgaaban oo aad iyo aad buu mataqaanaa u xishoodaa oo diinta iyo ku xishoodaa mid naga celin kara markaan baarlamaanka u tago dadka kale oo habaar qaba aan dooranno wallaahi baan ku dhaartay wuxuu yidhi habaar qabihii baa la juus garaynaya because waxay u juus garaynaya inuu ka celin karo qabiilada kale iyo kuwa kaloo baarlamaanka jooga marka meel sidaas ah maxay tahay marka wanaagga ka imaan kara marka soo waxaan u habaaraya wixii 4.5 ka keenay oo systemka keenay waxaan keenay waxa waaye de sidaasaa la rabaa inaa lagugu dhameeyo Afghanistan tan ka dhacdoo kale aakhirka lagugu keeno wax kale ma rabaan gaalo wax kale ma rabaan waa gartay sahra barnaamijkii gaarka ah aanu ku eegeynay xusaska ku saabsan waa tahay guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan anigii sahra ku falanqeynaynay xusaska sanad guurooyinka maamul goboleedyada amaba isteedyada ka jira Soomaaliya intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waxaan idin rajeynayaa inaad ka hesheen barnaamijkan intaanu barnaamij la mid ku kulmi doono waa Sahra Diiriye oo maskax kobcisay anigoo Shukri Sharaf official channel fadlan channeladeena la wadaag asxaabta subscribe and comment share tan waxagina mahadsanidin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته